dowladda Iran ayaa maalmo ka hor shaacisay in berri oo axadaha ay badbiyoodka gacanka Xurmus ka samayn doonto dowlad Suubeed ciidamada badda waddankaasi fulin doonaan kaas oo ah dabrid rasaas nool la adeegsan doono dowladuskan oo 2 maalmood socon doona ayaa lagu warramay in lagu soo bandhigi doono heerka xawaare ee gaadiidka dagaalka ciidamada ilaalada kacaanka Iran madaafiic cusub lagu baroobayn doono halka iyana lagu tijaabin doono qayb ahaan gujisyada iyo gaadiid badeedka quusa ee ciidamada waddanka sida ay MMWR ogaatay ujeedada ugu weyn ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ka leedahay dowladuskan ayaa ah in lagu xaqiijiyo karaanka hubka iyo ciidanka waddanka ee quseeya ka hortagga burburinta iyo quusinta gaadiid hubaad culus oo ay suurtagal tahay in docda badda waddankan looga hujuumo talaabadan ayaa dhinaca kale ku soo beegantay xilli la qiyaasayo in maraakiibta dagaalka Mareykanka ee ugu weyn yahay kan diyaaradaha xambaara ee Abraham Lincoln ay howlgalkooda dhowaan ka bilaabi doonaan halkan gacanka Cumaan jiho ahaan si rasmi ah ugu aadan Iran masaafo ahaan marka xuduud biyoodka gobolka laga hadlayo halka ugu dhow ee maraakiibta armada ee Mareykanku ka kulaali karaan xadadka Jamhuuriyadda Islaamiga isku aadka dowladuskan culus ee ciidamada Iran berri u bilaaban doona iyo imaanshaha xuduud biyoodka bariga dhexe ee gaadiidka dagaalka badda ee Mareykanku waxa ay labo jibaartay in dagaalka labadan wadan ku qarxo si ka dhaqso badan inta la oodorosi karay waxa laga walwal qabaa in Iran tijaabadan uga faa'iideysan karto inay si ula kaca u bartilmaameedsato maraakiibta dagaalka Mareykanka tani waxa ay soo dedejisay digniin ay soo saareen taliska guud ee ciidamada Mareykanka ee lagu magacaabo US Military Central Command kuwa oo ciidamada Iran u sheegay inaysan u dulqaadan doonin waxa ay ugu yeereen ficilo aan ammaan ahayn sida in diyaaradaha dagaalka Iran dul tagaan maraakiibta dagaalka Mareykanka ama in doonyaha xawaaraha dheereeya ee ciidamada badda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay ku dhawaadaan halka ay ku sugan yihiin maraakiib dagaalka Mareykanku khubarada arrintan isha ku haysa waxa ay ka digeen in xaaladdu si fudud faraha uga bixi karto oo isku dhac yar ama tallaabo si ula kaca uga timaada ciidamada Iran ama xitaa docda Mareykanku ay sababi karto isfarasaar toos ah oo dhinacyada ka dhex qarxa midaan shaki lahayn ayaa ah in gantaalaha hypersoniga Iran ee xawaaraha dheereeya si fudud ku bartilmaameedsan karaan goobaha la qiyaasayo inay ku sugan yihiin maraakiibta dagaalka Mareykanka su'aal la isweydiinayo ayaa ah in Iran burburin karto guud ahaan koox maraakiibeedkan strike groupka loogu yeero taas jawaabteedu waxa ay ku ururaysaa inaysan Iran si dhaqso leh u wada waxyeelayn karin koox maraakiibeedkan dagaal maadaama difaacyadooda gantaalaha iyo hubka xadbeelka ah ee lafahaantooda ku rakibani uusan taas fududayn karin iyadoo ay halka joogto ayaa haddana Mareykanku waxa uu cabsi weyn ka qabaa in dowladusbadeedka Iran dhali karo halis aan la dhayalsan karin dhinaca kale xiisada labada wadan ayaa weli cirka isku sii shareeraysa wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi oo shalay booqday Turkiga sida MMWR horey u warisay ayaa hoosta ka xariiqay inaan Iran wada hadal uga furnayn doonisaha Donald Trump ee quseeyay in la burburiyo awoodda hubeed ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah wuxuu adkeeyay inaan qodobkaasi xitaa miiska wada hadalka saarnayn halka uu dhinaca kale xusay inay dalahaan kaliya doonayaan wada xaajood dhex iyo cadaalad haddii aysan taasi suurtogal ahayn aysan docdooda wada hadal u socon